Bismillahirrahmanirrahiim waxaan wanaagsan dhageystayaal saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka falanqaynta caalamka xiliyadan oo kale aad ka daawataan warbaahinta Naafici Show warbixin aan caadi ahayn wargeyska The Economic ayaa soo bandhigay warbixin lagu sheegay in uu isbedel weyn ku dhacay cimilada dalka Iran kadib 10 sano oo abaar iyo roob la'aan inay hadda Iran heshay roob wax badan bedelay oo buuxiyay wabiyada ilaa cimilada ay isku badashay meelaha qaar inuu baraf ka da'o warbixintan ayaa lagu sheegay in isbedelka cimilada Iran iyo dalka in uu si dhaqso ah ugu baxayo abaar jirtay 10 sano oo xiriir ah oo maalin uu roob ka deyn inay ka dhalanayso markii Iran ay burburisay raadaaro iyo nidaamyada sida la hubo loo adeegsan jiray oo wax uu dhimayay cimilada dhulka Iran kuwaas oo ay adeegsan jireen Mareykanka iyo Israa'iil si ay ugu yaraan ugu ragaan Iran lama degaan isla markaana loogu guuro bini'aadamka iyo xayawaanada aysan ugu noolaan karin ilaha aan xiganayno warbaahinta ayaa sheegaysa in weerarada ay fulisay Iran intii dagaalka uu socday in lagu burburiyay nidaamyo ballaaran oo lagu maamulo cimilada qalabka looma adeegsan jirin oo kaliya difaaca oo kaliya balse waxaa lagu eedeeyay in lagu maamulay ama lagu xakameeyay cimilada dalka Iran dhageysto weliga hore ma uga fikirtay in uu jiri karo hub lagu xakameynayo cimilada abaarta meelaha qaar sida Soomaaliya aan ka bixin tan oo kale ma la xiriirta ayaad isleedahay wax walba waxay u muuqdaa sida filimka sayniska oo kale madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo xalay aad iyo aad u sigtay kaasoo dhowr jeer dhulka ku dhacay muxuu Trump u doortay isla goobtii lagu dhaawacay Ronald Reagan goobta ay xalay dhacdada ka dhacday ama rasaasta ay ka dhacday ee Washington Hilton xilli uu ku sugnaa Trump iyo inta badan mas'uuliyiinta dawladda Mareykanka waa isla hotelkii lagu dhaawacay madaxweynihii hore ee Mareykanka Ronald Reagan 30kii bishii Maarso sanadkii 1981 labada dhacdo kaliya waxa ay ku kala duwan yihiin Reagan wuxuu xilliga weerarka ku jiray gaarigiisa halka Trump uu xalay fadhiyay hotelka ku yaala Reagan isla Trump dhaawaca culus ayaa soo gaaray weerarka ka dhacay ama weerarkii dhacay 1981 markii xabada lagu dhuftay ay jibisay feer dhaawaca gaarsiisay mid ka mid ah sababadiisa muuqaalada munaasabada aqalka cad ee xalay laga arkayay xilli ay rasaasa socotay Trump iyo ku-xigeenkiisa oo si degdeg ah loola cararayo waqtiga Trump ayaa dhulka ku dhacay kaas oo shir daraa'id mar dambe uu qabtay sheegay inay ahayd habeen aan caadi ahayn dhinaca kale qof looga shakaysan yahay toogashada lagu qaaday xafladda aqalka cad ee cashadii wariyaasha ayaa lagu sheegay in uu yahay macallin ka soo jeeda California oo wax ka bixin jiray adeegyada tababarka sida ay warisay CBS News oo la hadashay BBC-da Mareykanka eedeysana oo warbaahinta Mareykanka ay magaciisa ku sheegtay Collier Thomas Allen ayaa ka shaqeyn jiray shirkad bixisa adeegyada waxbarashada oo ku taala Toronto sida ay CBS u sheegtay laba sargaal oo ka tirsan hay'adaha sharci fulinta Trump ayaa si hordhaca u diiday weerarka ka dhacay xalay goobta uu ku sugnaa in lala xiriirin karo dagaalka Iran wariye ayaa weydiiyay ma jirtaa wax tilmaamo ah oo muujinaya in weerarkan rasaasta uu xiriir la leeyahay ayuu yiri dagaalka Iran Trump waxa uu yiri u maleymayo sidaas laakiin waa la hubin doonaa si buuxda ayuu yiri arrintan waana la ogaan doonaa waxa jira Trump ayaa ku sheegay qofka loo xiray rasaastii xalay ka dhacday goobta uu ku sugnaa oo hadda gacanta lagu hayo inuu yahay qof aad u xanuunsan isagoo inta ku daray ma doonayno in aan waxyaalahan oo kale ay dhacaan mar kale waxa kale oo uu sheegay muddo 30 cisho gudaheed in dib loo qaban doono munaasabadii xalay la joojiyay oo ahayd mid sanad walba uu qabto aqalka cad waxaana loo qaban doonaa ayuu yiri wariyaasha ka soo warama gudaha aqalka cad iyadoo Trump uu tilmaamay munaasabad ka weyn midii xalay loo joojiyay Bismillahirrahmanirrahiim waxaan wanaagsan dhageystayaal saaxiibayaal meel kasta oo joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka falanqaynta caalamka xiliyadan oo kale ka daawataan warbaahinta Naafici Show dhaafiya goobta ay ku sugnaayeen ilaaladiisa iyadoo muuqaaladan uu dhaliyay dhaleecayn badan oo loo jeediyay habka loo sugayay amniga goobta ay ka socotay cashada ee xalay sida degdega ah looga soo saaray madaxweyne Trump